xubnaha ka socda baarlamaanka Puntland oo haatan booqasho ku jooga dalka Uganda ayaa aqoon kororsi waxa ay la qaateen baarlamaanka wadankaasi Uganda iyadoo sidoo kale la qaadanaya casharo ku saabsan dimuqraadiyadda sida faafinta warkaan noogu soo diray Maxamed Yamani oo magaalada Kampala ee xarunta caasimadda wadanka Uganda warbixinta ay nooga soo diray xubnahan ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maalmihii ugu dambeeyay booqasho ku joogay dalkan Uganda ayaa waxa hogaaminayay gudoomiyaha baarlamaanka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland mudane Cabdirashiid Maxamed Xirsi waxaana safarka gudoomiyaha ku weheliyay gudoomiyaasha gudiyada baarlamaanka wafdiga ayaa intii ay joogeen dalkan Uganda waxa ay cilmi kororsi la qaateen dhigooda dalkan Uganda oo ay kala qayb galeen kulamadii ay la lahaayeen baarlamaanka Uganda iyo sidoo kale casharo ay si gaar ah u qaadanayeen kuwaasi oo dhamaantood ku saabsan habshaqameedka baarlamaanka Puntland uu hayo shacabka wafdiga ka socda baarlamaanka Puntland ayaa la kulmay gudoonka sare ee baarlamaanka Uganda waxaana ay si gaar ah ula kulmeen gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka oo ku booriyay in shaqada ay u hayaan shacabka ay wakiilka ka yihiin ay si daacad ah u gutaan baarlamaanka Puntland ayaa waxa cilmi kororsigan ka caawiyay hay'ad Mareykan ah oo lagu magacaabo NDI taasi oo ka shaqeysa kobcinta arrimaha dimuqraadiyadda ku saabsan oo maadooyinkii u dambeeyana dawladda Puntland ay ku hawlaneed hirgelintooda aqoon kororsigan ay qaadanayeen baarlamaanka dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa soconayay muddo toddobaad waxaana markii uu soo gabagaboobay saxaafadda warka siiyay gudoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi waxaana gudoomiyuhu uu mahad celiyay hay'adda NDI oo iyadu tababarkan fududeysay iyo dawladda iyo baarlamaanka Uganda oo uu sheegay in ay si fiican u marti qaadeen waxaanu la kulannay gudiyadii baarlamaanka oo kala duwan waxaan la kulannay staafkii baarlamaanka waxaanu dhammaan faham ka qaadanay oo aanu maray casharana ka helay qaybaha kala duwan ee baarlamaanku u shaqeeyo gudiyaashiisii sistemaday u dhisan yihiin habraacooda shuruucda wax badan oo macluumaad ah ayaanu halkaa ka helay waxaanu kale oo ka helay documents ama reference fara badan iyo shuruucdooda dastuuradooda xeerar hoosaadkooda iyo dhammaan dalka sida u shaqeeyo waxaan kaloo brief ka helay hawshii adkayd iyo burburkii faraha badnaa ee ay soo martay dalkani uu soo maray waxyaalihii la yaabka waxaa ka mid ahaa madaxweynayaashii tirada badnaa ee isbadbedelayay qaar ka mid ah waxaa naloo sheegay inay 40 iyo 68 maalmood ay madaxweyne ka ahaayeen dalkaani waa dal aad u qurux badan waa dal barwaaqo ah waa dal aan roobku ka qaadin waa dal soo maray waxa Soomaaliya ku jirta soo maray kana dawoobay meel fiicanna hadda dalkooda iyo isku xiraantooda iyo dawladnimadoodu ay meel sare marayso waxa la oran karaa baarlamaanka Uganda wuxuu tusaale u noqon karaa model fiican u noqon karaa dhammaan baarlamaanada Afrika xaqiiq ahaan wixii aanu ka kulannay qaabkii u shaqeynayeen dhinac walba marka laga eego hawsha baaxadda leh ayaa teamka Uganda ama delegation-ka ka yimid Puntland oo la kulmay waxaan rajaynaynaa waxaanu isaga ekayn oo aanu la kulanno aan isaga egnahay baarlamaankan waa isaga egnahay laakiin wixii naga duwan oo ay nooga fiican yihiin inaanu dabakhno markaan baarlamaankayaga ku noqonno intii ay ku sugnaayeen dalkan Uganda baarlamaanka Puntland waxa ay la kulmeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee Uganda ku dhaqan iyagoona kala hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka iyo gaar ahaan tan Puntland iyo mowqifka ay dawladda Puntland ka taagan tahay nidaamka federaalka ah ee uu ku dhisan yahay dastuurka Soomaaliya dhinac walba markaanu daraasad ka samaynay Puntland waxay isku afgarteen arrinta kaliya ee Soomaali maanta la isugu keeni karaa nidaamka federaalka inuu yahay wafdiga ka tirsan dawladda Puntland ee boqoshada ku yimid dalkan Uganda ayaa waxa ay intii halkan joogeen waxa ay kulamo kala duwan la qaateen xubnaha kala duwan ee dawladda Uganda baarlamaanka Puntland ee boqoshada ku yimid dalka Uganda ayaa waxa gudoominaya gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waxaana intii ay dalkan joogeen ay ka qayb galeen kulamada ay yeelanayaan baarlamaanka dalkan Uganda waxaana ay sheegeen intii ay halkan joogeen inay ka faa'iideen aqoon badan oo ay dalkiina dib ugu noqon doonaan Maxamed Yamani telefishinka caalamiga ee Somali Channel Kampala